wiilkan ku muuqda diifta iyo dhibaatada ka muuqata waxa xoray waalidiintiis iyagoo sheegay inuu yahay wiil saaxir ah asbax qumay iyo wax la mid ah dhibaatana uu u keeni karo qoyska haddii uu la sii joogo arrintaasina waxaa ka dhaadhacsiiyey dad haddii aan kuu sheego aad la yaabi doontid jidadka waaweyn ee dalka Nigeria ayuuna wiilkan muddo dhex wareegayay isagoo waayay cid u macinta cid garab qabata dhammaan dadka ku nool dalkaasi Nigeria gaar ahaan gobolka dhibaatadan ee ka dhacdayna dadkii oo idil wiilkan waa ay ka kala carareen iyagoo aaminsan inuu yahay saaxir qumay asbax iyo in dhibaato uu keeni karo haddii ay gurigooda geystaan waalidkii dhalay ayaana wiilkan dhibtan intaasi la eg gaarsiiyey haddaba sheekada wiilkan waa mid baraha bulshada qabsatay gaar ahaan 2016 waana mid faaftay ilaa iyo haddana saameyn leh bal aan bilowno sheekada wiilkan aan kaaga sheekeynayo waxay ka soo bilaabatay deegaan ka tirsan dalka Nigeria waxaana deegaankaasi caan ka ahaa caadooyinka aadka u liita oo lagula kaco haweenka iyo caruurta aadka u daada yar waxaana wiilkan tuuray qoyskiisa kadib markii ay ku shaabadeeyeen inuu yahay saaxir waana la deeriyey oo reerkiisa way xooreen kadibna waxaa gacanta ku dhigtay Anja Rigren Loven oo haweeneydan sawirkan kaaga muuqata taasi oo dadaal dheer ku bixisay sidii ay ku badbaadin lahayd cunugan yar ee saqiirka ah laakiin qoyskiisa ay soo tuureen kadib markii ay ku sheegeen inuu yahay saaxir ama asbax Anja waa aasaasaha xarun ka shaqeysa horumarinta caruurta iyo waxbarashada sidoo kalena waxay hormuud ka tahay dadaalada lagu badbaadinayo kumanaan caruurta reer Nigeria ahaa kuwaas oo lagu eedeeyay inay yihiin saaxiriin sanad kastana reerahoodu ay xooraan dalka Nigeria gaar ahaan gobolkan aan ku sheegayo ee Akwa Ibom lagu magacaabo dadka ku sugan caruurtooda badi waxay ku eedeeyaan inay yihiin kuwa saaxiriin ah kuwa haddii ay la sii joogaan dhibaatooyin ay kala kulmi karaan asbaxyo inay yihiin iyo kuwo aanan waxa mustaqbalka soo socda dhibaatooyin ku keeni kara laakiin waa waxa iska dhaadhacsiiyeen iyo wax iyagu ay aaminsan yihiin wiilkan yar ayaa bilo ku wareegayay wadooyinka waaweyn ee dalka Nigeria ku yaala ka hor inta aysan haweeneydan uusan soo gaarin wicitaan ama telefoon kaas oo loogu sheegayo dhibaatada wiilkan haysata gaaraan cunugan yar waayayna cid u maciinta garab qabata kana samata bixisa dhibaatada waqtigaas uu wajahayay maadaama wiilkan lagu eedeeyay ama lagu sheegay inuu yahay saaxir iyo waxyaabo la mid ah qumaynimo isla markaasina waxaa halkaasi gaaray koox samata bixin ah oo ku jiro ninkeeda David Emmanuel Omem waxayna ay wiilkani ka qaadeen dalka Nigeria waxa ayna geeyeen xarunta hay'adda waxbarashada iyo horumarinta caruurta oo loo yaqaano Land of Hope oo isaguba loogu magac daray wiilkan muddo 6 sano ah ayaana gacanta ku haysay haweeneydan oo isaga iyo boqolaal kale oo caruur ah ay daryeel u fidisay waxayna ku dadaashay koriimadiisa iyo sidii uu u kabsan lahaa diiftii dheereed ee uu la daaladhacayay intii u dhaxaysay dhalashadiisa iyo inuu u soo gacan gelisay Anja waxaana ugu dambeyntii dib ula midoobay aabihii inkastoo sanado kadib uu tuuladii dib ugu soo laabtay aabihii oo markii hore ka maqnaa deegaanka wiilkan sawiradiisa inkastoo muuqaalkiisa hadda ahayn laakiin baraha bulshada ayuu qabsaday waa una faafay gobolo ka mid ah dalka Nigeria waxaa caado ka ah dhibaatooyinka faraha badan ee caruurta lagu dhibaateeyo iyagoo lagu eedeeyo waxyaabo aysan waxba ka ogeyn ama aysan shaqo ku lahayn intooda badan dhibaatooyinkaasina waxaa qayb weyn ka qaata wadaadada diimaha ay aaminsan yihiin kuwaas oo reeraha u meeriya waxyaabo khuraafaad ah oo soo dedejiya in reero badan ee caruurtoodu nolosha ku xooraan ama dilaan iyagoo sheegaya kuna eedeynaya saaxiriin iyo kuwa dhibaato u keeni kara inay yihiin waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan tan iyo muuqaalkan xiga maalinta berri waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah